xukuumadda Somaliland ayaa si degdeg ah uga jawaabtay baahiyo dhinaca biyaha ah oo ka soo yeeray deegaano ka tirsan gobolka Hawd. Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Somaliland Marwo Samsam Cabdi Aadam oo qarashka 30 booyadood ku wareejisay xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac ayaa ka warbixisay deegaanada biyaha la gaarsiinayo. halkan saaka waxaanu xildhibaan Nacnac ku wareejinaynaa biyo 30 booyadood oo loo kala dirayo Sayla Bari, Sayla Galbeed, masaajidka Balle Cabane iyo Gumar. sidaan ku wareejinaynaa dadkaas oo laga soo sheegay inay haraad badan ka jiro wixii dambe markaas oo kordhana insha Allah aaga ka soo kordha xildhibaankan kala xidhiidhayna meelihii kale de Ilaahay raxmada inoo daaday insha Allah Ilaahay roobkiisu baa lagu dhargaayay waan u diyaar baan inaan wax kala qabano. xildhibaan Axmed Diiriye Nacnac oo xukuumadda u wakiilatay wax ka qabashada baahiyaha dhinaca biyaha ee deegaanadaasi ayaa ka warbixiyay qaabka biyahaasi loo gaarsiin doono deegaanadaasi haraadka iyo biyo la'aanta laga soo sheegay. Sodonka boosto iyo booyadood waxaan doonayaa inaan u qaybiyay markaas loo ay si population ku kala badan yahay saasana soo qaybin doonaa iyadana waxaan leenahay insha Allah billahi kariim dadkaagii wad u shaqaysay Ilaahay jizaa ka siiyo. xildhibaan hore oo ka tirsanaan jiray golaha deegaanka ee gobolka Hawd ayaa u mahad celiyay xukuumadda oo si degdeg ah uga jawaabtay baahida dhinaca biyaha ah ee deegaanadaasi laga soo sheegay. markasta oo la qabanayo dan guud waxa Ilaahay mahadiya in xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo kaashanaya madaxweynaha iyo wasiiradda maaliyadda khayr Allah siiyo aan dhowr goorna u dhagan uglaatay dadkoo abaaray ku dhaceen ayaa sidoo kale maanta biyo loo diraya tuulooyin fara badan oo hoostaga gobolka Hawd